Saleen dhammaan taageerayaasha Liverpool iyo kubadda cagta guud ahaan maanta waxaynu ka hadlaynaa go'aan weyn oo gilgilay Anfield kadib markii Liverpool ay shaqada ka eryday tababarihii kooxda Arne Slot. Inkasta oo kooxdu ku hogaamiyay hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2024-2025 qaab ciyaareedkii liitay ee 2025-26 ayaa sababay in maamulka kooxda ay qaataan go'aan adag. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa sababaha ka dambeeya bixitaankiisa, qaladaadka lagu eedeeyay iyo sababaha Ariola loogu arko musharaxa ugu cadcad ee kursiga Liverpool. Arne Slot ayaa laga qaaday xilkii tababaraha Liverpool waxaana Ariola uu noqday musharaxa ugu horeeya ee loo arko inuu bedeli karo. Xilli ciyaareedkii 2025-26 ee Liverpool wuxuu noqday mid aad u dhib badan, iyadoo kooxda ku dhameystay kaalinta shanaad iyadoo heshay 60 dhibcood oo kaliya halka horyaalka Premier League ay ka qaaday kooxda kubadda cagta Arsenal. Dhibaatooyinka badan ee jiray dhinaca ciyaartoyda kooxda, taageerayaal badan waxay rajeynayeen in boosaska maqan kooxda la buuxiyo, balse arrimahaasi kama saari karaan tababaraha mas'uuliyadda. Slot wuxuu ku hogaamiyay olole taariikh ahaan aad u liitay, inkastoo loo keenay ciyaartoy qiimahoodu gaarayo 450 milyan. Haddana tababaraha reer Netherland marar badan wuxuu ku guuldareystay inuu gaaro heerkii la filayay. Calaamadaha digniinta ayaa jiray tan iyo xilli ciyaareedkii 2024-25. Inkastoo Liverpool ay ku guuleysatay horyaalka, haddana waxaa jiray kulamo muujinaya dhibaatooyin qarsoon oo kooxda ku jiray. Bilowga xilli ciyaareedkan, kooxda si fiican ayay u ciyaartay iyadoo Liverpool ay badisay 29 ka mid ah 37 kulan oo ugu horreeyay ee Slot hogaamiyay kooxda dhammaan tartamada. Si kastaba ha ahaatee, ka bixitaankii FA Cup-ka bishii February 2025 markii ay ka adkaatay Bournemouth ayaa shaki dhalisay, waxaana xigay bandhigyo aan joogto ahayn, waxaana walaac sii kordhiyay qaab ciyaareedkii liitay ay kooxda soo bandhigtay kulamo muhiim ah. Finalkii Carabao Cup-ka ee Newcastle United ayaa ahaa mid si gaar ah loo xasuusto maadaama Newcastle si weyn ugu firfircoonayd Liverpool dhinac kasta. Rikoorka Liverpool ee 2025-26 wuxuu ahaa 56 kulan, 28 guul, 9 barbaro iyo 19 guuldarro. Liverpool waxay bilow wanaagsan ku furfuratay xilli ciyaareedka cusub, balse 33 kulan ee ugu dambeysay waxay aruurtay 45 dhibcood oo kaliya, taasoo muujisay hoos u dhac weyn. Dhinaca kale, Mohamed Salah iyo Arne Slot waxaa dhexmaray xiriir sii xumaanayay. Salah ayaa dhowr jeer si dadban iyo si toosba u dhaleeceeyay tababaraha, waxaana ugu dambeyn uu kooxda ka tegay dhammaadka xilli ciyaareedka. Inkastoo Salah uu jiray 33 sano, haddana Liverpool waxay si weyn ugu tiirsanayd tayadiisa xilli ciyaareedkii ay ku guuleysteen horyaalka, wuxuuna dhaliyay 29 gool isla markaana bixiyay 18 caawin. Markii qaab ciyaareedkiisu hoos u dhacay 2025-26, Slot wuxuu ku guuldareystay inuu keeno xalal kale oo weerarka kooxda ah. Liverpool waxay xilli ciyaareedka ku dhameystay 63 gool oo kaliya horyaalka, inkastoo ay kooxda joogeen xidigo ay ka midka yihiin Alexander Isak, Florian Wirtz iyo sidoo kale Hugo Ekitike. Taageerayaasha Liverpool sidoo kale waxay ka niyad jabeen qaab ciyaareedka kooxda marar badan, waxaana la arkayay taageerayaal Anfield oo muujinaya caro niyad-jab ku saabsan Arne Slot. Qaab ciyaareedkiisa difaaca badan iyo cadaadis la'aanta kooxda waxay sababtay in Liverpool marar badan dhibco lumiso. Haddaba indhahoo dhan waxay ku wajahiin Ariola. Tababaraha Bournemouth ayaa noqday musharaxa ugu cadcad shaqada Liverpool kadib markii uu kooxdiisa ku hogaamiyay xilli ciyaareed cajiib ah. Bournemouth waxay ku dhameystay kaalinta lixaad iyadoo heshay 57 dhibcood, waxayna xaqiijisay ka qaybgalka Europa League. Ariola wuxuu sidoo kale ku guul gaaray kooxo waaweyn sida Liverpool iyo Arsenal, halka uu barbaro la galay Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo Aston Villa. Inkastoo ay jiraan su'aalo ku saabsan sida qaab ciyaareedkiisa uu shaqayn doono koox sida Liverpool oo kale ah, haddana taageerayaal badan waxay aaminsan yihiin inuu dib u soo celin karo firfircoonidii iyo tamartii ay kooxda lahayd xilligii Jurgen Klopp. Maxaad ka qabtaa go'aanka Liverpool ee ku eryday Arne Slot? Ma kula tahay in mudnaa waqti dheeraad ah, mise maamulka ayaa qaatay go'aan sax ah? Sidoo kale, Ariola ma yahay tababaraha ku habboon? Fikirkaaga inoogu reeb qaybta faallooyinka. Ha iloobi inaad like saarto, subscribe gareyso, kana sidato gambaleelka si aad ula socoto wararkii u dambeeyay ee kubadda cagta.